kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada musalsalka qof oo lansaday can shaqa xalqadii shalay imid maanta ayaan falanqeynaynaa ee kala ah 304 iyo waliba 305. haddii aan ka hormarno xalqada 304 itii shalay ahayd waxay ka bilaabanaysaa saay oo su-aaleysa Firaad sababta u baxayo ilaan markii u dambeysay waxay inoo joogtay Firaad oo dhahayo waan baxaya. saayna waxaa lahayd waan ogay sababtaad u bixi rabtid baaqi darteed ayaad u baxaysaa maadaama baaqi aad heli weysay sidaasaad u caraysan tahay soo ma ahan. Firaadna wuu la hadlaya saay wuxuu leeyahay adiga mar walba maxaad baaqi dhexdeena u keentaa ood baaqili mowduucayda aad u wadwadaa aniga horan kuugu sheegay baaqi ma jecli ayaan ku dhahay xiriirkii anigii baaqi naga dhexeeyeyna mar horaa iyuu dhammaaday oo nolosheenii hore maxaad mar walba iigu dabaqdaa mar hore ayaan iska iloobay gabadhan baaqi ah ee baaqi aad iga daba wadid iga dhaaf madax adeegan jooji. midda kaleetana adiga mar walba maxaa sidan uga carootaa saay waxay dhahaysaa aniga ma caraysni ee qofka caraysan waa adiga. midda kaleetana aniga waxaanba ku qaldanaa inaan bedelkaadii baajiyey oo safarkaadii aan kaa celiyey ma ahayn inaan bedelkaadii celiyo oon taliyahaadii inta u tago Firaad jooji aan dhaho waxay ahayd inaan indhaha kaa fiirsado ood iska baxdid laakiinse waxba ha ka baqin aniga ayaa hadeer kuu soo celinaya warqadaadii bedelkaadana wuu kuu hirgelaya waadna baxaysaa midaasi qalbiga ku hayso. markaasoo Firaad wuxuu dhahayaa adiga yaad isku malaysay ma ra'iisul wasaaraad isku malaysay mise qof kaleeto markaad leedahay sidan ayaan sameynaya iyo sidan ayaan sameynaya marna bedelkayga adiga joojinaya marna adiga fasaxay miya maxaad isku malaysay haweeney sidaas u awood badan sidaas waxba isku malayn ee idab u joog aniga haddii aan doono waan baxay haddii kale waan joogaya. Firaad ayaa aad u qaylinaya saayna canaananaya saayna waxaa leedahay waan ogahay inaad weli baaqi u caraysan tahay wuxuu dhahayaa adiga baaqi maxaa dhexdeena u keenta iyadoo dhan intuu kala tuuro u derbi saaro ayuu su-aashiis ku celinaya wuxuu dhahayaa mar walba dhexdeena maxaad magaca baaqi usoo dhexgelisaa ma ii sheegi karta arrinkaas. markaasi saay waxaa leedahay baaqi dhexdeena weligeed ayay ku jirtay tan iyo markii aan isguursanay soo xusuusa maalinkii arooskan ilaa hadda magaca baaqi dhexdeena kama marna oo ku jira nolosheena qeyb ayay ka tahay. Firaad markaasuu sii daynay wuxuu dhahayaa waxaa tahay gabar aad iyo aad u madax adag mana garanayo xanaaqaada maalmahan. saayna waxaa leedahay idoo keligeed isla hadlayso xanaaqa Firaad maalinba maalinta ka dambeysa wuu sii siyaadayaa tanina caafimaadkiisa uma fiicno maskax ahaan ee maxaan sameeyaa. dhinaca kaleeta saay ayaa waxaa imaanaysa baaqi oo shaah wado marmarsi way shaaheeda waxay doonaysaa inay guriga indhayso Firaad iyo saay xaalkoodana ogaatay in xiriirkooda uu soo kabanayo ama isku sii dhaceen. waxay arkaysaa inay markaasi Firaad isa isdegelsan yihiin gogashoodii inaysan isku meel jiifanin barkimo iyo waxyaabo meesha yaalyaalo markaasi u fahmaysaa in khilaaf uu jiro waana farxadeedii. kadibna arrinkii ayay isku dayaysaa inay saay su-aasho saayna waxaa leedahay oo dabeecadaadii hore miyaad la soo laabatay inaad qolka amar la-aan iska soo geshid sidoo kaleetana nolosheena gaarkii afaaraheena aad soo farageshatid taasi dabeecad ayay kuu ahaan jirtay qadeerna weli way kuu tahay soo ma ahan. baaqi waxay leedahay halkan waxaan u imaaday inaan labadiina idin waco oo quraacda idinkugu waco wax kaleeto uma imaanin. saayo waxay leedahay aniga quraac ma rabi mana deganay waxaan ka daahayaa jaamacadda oon u socdaa. Firaad wuxuu dhahay waxyar kadib waan imaanayaa. haddaba halkaasi waxaa ka bilaabanaya muran dheer oo dhex marayo saay iyo baaqi sheekadana sidan ayay u dhacaysaa. baaqi waxay isku dayaysaa inay saay ku qasabto quraacda saayna waxay leedahay uma baahani aniga gurigan kama tirsani qoyskana kama mid ihi. markaasi baaqi waxay leedahay shalayna buuq ayaad dhalin rabtay ama aad dhalisay markii hooyadii imaanaysay haddana maanta isku dayin quraacda aan sameeyey inaad diidid ee imo. markaasi saay waxay leedahay hadiiba aad ogtahay inaan sidaas u xumahay wax wanaaga iga filan. saay baaqi waxay dhahaysaa adigii Firaad maxay tahay kala fogaanshahan aniga miyaa u sabab ah talow labadiina islama seexataan adiga mar walba Firaad waad dhibtaa. markaasi saay waxay leedahay
adigoo kaleete wax walba istustus inaan u sameeyo miyaad rabtay? Markaasi saay baaqi waxay dhahaysaa maxaad kala jeedaa? Saay niyaddii ka hadlaysaa waxay leedahay waan ogahay waxaan oo dhan istustus iyo show inay kaa yihiin ood iska dhigaysid naag ku faraxsan guurkeeda iyo samrad, laakiin hoosta ka rabto Firaad. Laakiin aniga ima siri kartid baaqi. Baaqina waxay niyadda ka dhahaysaa aniga iyo Firaad inaan kala fogaano wallahi saaya ayaa u sabab ah. Markaasay baaqi su-aashii ku celinaysaa waxay leedahay adiga iyo Firaad waad kala seexateen oo islama seexataan waad kala fogtihiin, aniga miyaa arrinkaasi sabab u ah? Saayina waxay dhahaysaa markaasi arrinkaas maxaad isugu murjinaysaa adiga? Maxay tahay sababta labadeena aad sidan dhan inoogu daryeeshid? Waxay kala jeedaa anigii Firaad xiriirkeena maxaad ugu murugoonaysaa haddaan isku dhacno iyo haddii kaleba? Midda kaleetana qolkan aniga iskale, meeshaan rabaan ka jiifan karaa, adiga waxaas inaad isku murjisid looma baahno. Firaad sheekadooda maqlaya wuxuu leeyahay buuqa maad naga dhaaftaan. Midda kaleetana baaqi waxay bilaabaysaa jilinkeeda waxay leedahay aniga waxaan ku faraxsanahay guurka samrad, markaana farxad ayaan dhankiisa ka helaya. Saay waxay leedahay haddii aad ku faraxsan tahay maxaad noogu sheegaysaa anaga? Intaad ku qoratid qoraal qolkaada iridiisa albaabka qolka ku dhegso, meeshana waxaad ku qortaa aniga iyo samrad waan isku faraxsannahay, gaar ahaan aniga si weyn ayaan ninkayga ugu faraxsanahay. Sidaas ku qoro, qofkii albaabkaada hortiisa maraya ha akhristee, ilaan intaas uma kuu dhiman. Maalin walba intaad qolkeena soo gasho ayaad inana leedahay aniga samrad ayaanu ku faraxsanahay, ujeedkaada muxuu yahay? Showga aad meeshan ku samaynaysid inaan anaga ku fahamsanayn miyaad u malaysay? Ninka Firaada buuqooda dhig jalaq uma siinayo, wuxuu ka fikirayaa Saay. Waxaana leeyahay qof walba noloshiisa u dhaqaajiyey, laakiin iyada goorma ii fahmi doontaa? Goorma jacaylkan u qaba ii fahmi doontaa? Hadal noocaas ayuu isdhaaya. Gabadhii baaqi ahayd waa la durooya. Markaasay leedahay Saay mar walba adiga si qaldan ayaad iila hadashaa. Firaad ayay ku dacwoonaysaa waxay leedahay Firaadow xaaskaada Saay mar walba qaab qaldan ayay iila hadashaa. Firaadna wuxuu ku jawaabayaa labdiinaba waad qaldan tihiin, adigana Saay fursad ayaad u siisay inay ku jafto oo adiga ayaa hadalka u bilaabayo, kadibna fursadaas adigaa siiyey. Saayna isma xakameynayso, mar ii bilaawlay waa sheekadeeda, markii loo bilaabana afkay kala furan, wax alaala waxay rabtay ku hadlaysaa. Marka labadiinaba waad qaldan tihiin, adiga waxaad samaysaa marnaba Saay ha u ogolaanin inay kula dagaasho. Sidaa awgeed sheekadan meesha ku xir, hoos u dego. Sidoo kaleetana quraacda aniga waan kaa daba imaanaya. Saay way ku celinaysaa mar labaad, waxay leedahay aniga quraac ma rabi, jaamacadan u socdaa. Midda kaleetana Firaado maanta waxay ka dambeeyo adiga culays kuma saarnaan doono. Sidoo kaleetana hadalla waxaa jira kolkolol ay Saay ku tiri baaqi. Waxaa ka mid ah samrad markii baaqi dhahday Saay iyo Firaad labadiinaba waxaan idinka rabaa inaad quraacda kasoo qayb gashaan, ma doonaya samrad inuu qalad idiin fahmo. Saayina waxay dhahday samrad doqon ma ahan, waa qof caqli badan, waxyaabaha rasmiga iyo waxyaabaha kaleeto uu kala saari karaa. Qofka beenta u qarinaya kan runta qarinaya buu kala saari karaa. Samrad waa qof weyn oo caqli badan, dad badan oo ogay uu ka caqli badan yahay. Sidaasay dhahaysaa, hadalkaasna waxay ku duraysaa waa baaqi iyo Firaad labadaba. Ugu dambeyn baaqi meesha markay kasii dhaqaaqi rabto, dood ayaa u bilaabanaysa haddana Firaad iyo Saay. Saay waxay leedahay horta ugu horeyn aniga quraacda uma socdiy, jaamacadan u socday, waxaan kaala doonayaa fiilalkii aabahii noloshayda gaarka, xog walba oo aabahii aniga xogtayda ah oo aabahii uu ku dhiibay oo aabahiina qusaysay, fiilalkaas igu soo wareeji bay leedahay. Fiilalkii ayuu siinayaa, markii warqadihii fiilkii uu ku wareejiyey wuxuu dhahayaa aniga mas-uuliyadeyda ha ii tilmaamin marnaba Saay, hana isku dayin inaad aniga ii amartid. Waxay leedahay maanta waxay ka dambeeyay dhib kuma saarno, beri waxay ka bilowdo xor ayaad ahaanaysaa, wax mas-uuliyad oo dhankayga ku saarnaanaysana ma lahan. Waxay kala jeedaa waan kaa fogaanaya, waan kaa tegaya, hadalla noocaas ayay ka wadaa. Dhinaca kaleeto Saay qorshe ayay diyaarinaysaa iyo sidii ku amba bixi lahayd. Firaadna wuxuu dhahayaa ma garanayo waxa aad diyaarinaysid ama qorshaha aad ciyaari rabtid markaan, laakiin waxaan kuu sheegaya qorshe walba oo xun ood aniga iga qarisid ood ku dhaqaaqdid mustaqbalkaada ayuu saameyn ku leeyahay, midaas ogow. Saayina waxay dhahaysaa hadda kadib waxba kaama celinaayo, waxay aad samaynaysid iyo fal walbaad ku dhaqaaqaysid kaalama talinayo, joog kuma dhahayo, mana kaa hor istaagayo xitaa haddii aad bixaysid oo safar aad aadaysid. Sidaas ayay dhahaysaa. Xalqadii shalay 304 meeshii ku dhamaatay.
waxaan gudagelaynaa xalqadda maanta ee 305 waxayna ka bilaabanaysaa baaqi oo quraacdii diyaarisay qoyskiina quraac wada siinayso. Bafani aad bay u ammaanaysaa quraacda macaan ee baaqi ee maanta karisay, waxaana leedahay dhawaanahan quraac caynkan amaba cunin ee baaqi maanta quraac cusub ayaad banoo samaysay. Baaqina waxay leedahay hooydii ayaa markan i bartay quraacdan gaarka ah, maantana waxaan ugu talagalay Samrad iyo qoyskoo dhanba inaan kaga farxiyo. Firaad meeshii ayuu imaanaya, quraacdii ayuu kasoo qayb galaya, qoyskii waa la wada joogaa, dad yar oo maqan mooyi sida Saay iyo xubno kaleeto. Ashwani sidoo kaleeto idana waxay ammaanaysaa quraacda baaqi. Waxaa meesha imaanaysa Diifyani. Baaqi waxay leedahay Diifyani fariiso kaale quraaco. Diifyani way diidaysaa, waxay leedahay Saay markay imaato ayaana Saay la quraacanaya. Baaqina waxay dhahaysaa Saay lama oga inay imaanaysa in kaleeto ee adiga iska fariisay cun. Bafanina waxay leedahay gabar yahay raashinkaada cun, adiga daawad cawaysaa, marka waqtiga daawadiisan dib dhacin inaad marka hore wax cuntid weeye, quraaco kadibna daawadaada cab, waqtigeeda cab. Intaas kadibna waxaa dhacayso in Saay la isweydiiyo sababta Saay ay usoo degan leedahay. Firaadna waxuu la hadlayaa baaqi, waxuu leeyahay horta Samrad ayaa su-aasha keenaya, waxuu leeyahay Saay maxay usoo degan weysay oo u quraacan weysay. Markaas la dhahayaa kolley sabab unbaa jirto. Shafanii baaqi bay weydiinaysaa, waxay leedahay Saay quraacda ma uga yeertay. Baaqi waxay leedahay waan ka codsaday, xitaa waan u yeeray waana ka codsaday inay quraacda kasoo qayb gasho, laakiin way i diiday, maxaan sameeyaa? Samrad wuxuu dhahayaa maxaa kalifay inay Saay quraacda diido. Firaadna wuxuu dhahayaa Saay hasku marjinin baaqi ee quraacda dadka sii. Intaas kadibna Samrad wuxuu u fahmayaa in Saay ay quraacda kasoo qayb gali weysay sabab la xiriirta inay Firaad u caraysan tahay. Marka waxaa bilaabanaysa in Saay la jafo. Bafani waxay leedahay Saay mar walba caado iyo dhaqan ayay ka dhigatay inay Firaad la dagaasho, laakiin qaladka ugu weyn ee gashaa wuxuu yahay inay ka joojisay bedelkii warqadii bedelkana ay ka baajisay iyo safarkii uu baxayay. Marka qaladkaas unbaa jiro siday ila tahay oo labadooda isugu dhacsan yihiin. Samrad wuxuu dhahay inaad faraxdid ayaanba filayay, ileen Firaad wuuna la jooga, qoyskiisi ayuu waqti la qaadanaya. Saayna inaad u mahad celisid ayaan filayay, ileen falkan ayay ku dhaqaaqdo. Firaadna safarkii way ka celisay. Amkar wuxuu dhahay oo Firaad ay Saay isku malaysay iyada markay Firaad taliyihiisa la kulmayso oo ay bedelkii joojinayso. Arrinkaas ilaa hadda waan aamini la'ahay. Samrad wuxuu dhahayaa ilaa hadda anigana waxaan aamini la'ahay dhammaantiin inaad Saay kasoo horjeedaan ood markaasi cadow ka dhigateen. Maxay tahay sababta sidan oo dhan Saay aad markaasi uga hor imaanaysaan? Koox isbiirsatay ayaad noqoteen oo Saay cadow ku ah. Maxay tahay sababtaas hala ii sheego. Ashwani ayaa sheekada daboolaysa, waxay leedahay Saay aniga qolkeeda quraacda ugu geynayo. Markaasoo Firaad wuxuu dhahayaa looma baahna midaas, Saay idaaba soo degatay iyadoo leh jaamacadda ayaan ka daacsanahay, quraac uma baahni. Laakiin Ashwani ayaa qasbayso, soo fariisinaysa miiskii quraacda, qasabna quraacdii ku siinayso. Gabadhii Sonali, haweeneydii Sonali ahayd, waxay leedahay wallaahi aniga Ashwani ayaan ka yaabay sida ay markaasi u muujinayso qof si weyn uga fikirayo Saay inay iyada dhasho ayaad ballamoodaa, sidii markan uga taxadirayso, uga jacaylna uga muujinayso, mar walbana u difaacdo. Gabadhii Saay ahayd markii quraacda sidaas loo siinayo, baaqi ayay su-aal ku bilaabayso. Waxay leedahay maxay tahay sababtaad u diiday quraacdiida markii hore? Maadaama baaqi ay quraacda samaysay sidaas ayaad u diiday, anigoo baaqi ah quraacda aan sameeyey. Markaas kadibna haddana waxay leedahay dadka maad u sheegtid, gaar ahaan Samrad, inaan aniga quraacda kugu yeeray oon kaa codsaday quraacda kasoo qayb gal aan ku dhahay, laakiin aad iga diiday. Midaas u caday dadka. Saayna way cadeynaysaa, waxay leedahay waa run, baaqi waa ii wacday anigana diiday maadaama aan ka daahsanaa jaamacadda. Midda kaleetana baaqi istustuskeeda iyo hadalladeeda qalabsan ayaan dhibsaday. Waxaan ku dhibsaday wax kaleeta ma ahani, qoyska u daba nacamlayaan iyada. Aniga iyo hooyo Ashwani haddii aan quraac sameyno cidna amaanta ma lahan oo markaasi dhahdo quraacdaada way macaan. Marka mar walba ay baaqi quraac samaysana
waa loo daba dhaqaa oo ayada ayaa markaasi aad loo koolkooliya, loo ammaanaa. Waxaana arrinkaas sabab u ah maamada gurigan ugu weyn iyo dabafani oo mar walba baaqi tallaabo yar iyo tallaabo weyn baa dee qaado way ammaantaa. Aniga iyo hooyo Ashwaniina mar walba cadow ayaana lagu yaho haddii aan wax walba sameyno ammaan iyo mudnaan ma helno. Halkaasi bafaniya waxaa leedahay maanta qoyskoo dhan way wada faraxsan yihiin, ha isku dayin inaad markan hadir buuq iyo qaylo abuurtid. Saayo waxaa leedahay maanta waxay ka dambeeyay ama beri waxay ka bilowdo aniga awgii gurigan buuq ogama dhalan doono. Sidoo kaleetana quraac aniga la igu talagalay ma qasaari doonto, arrinkaas waxba ha ka walwalina. Markaasaa waxaa leeyahay maxay tahay, maxaa diyaarin rabtaa beri waxay ka dambeeyo. Sabradna su'aal buu weydiinaya, wuxuu leeyahay saay daawadaadii ma cabtay. Saay waxay dhehaysaa jirada iyo haysa sababteeda waan garanayaa, xanuunka i hayo waxa uu yahay. Niyadda waxay ka dhehaysaa ugu dambeyn waan bixi doonaa beri, anigoo cidna qofna waxba u sheegin ayaan bixi doonaa, halkana waan ka tegayaa. Markaa qof walbana wuu nafisi doonaa, qofkii aniga dhib igu qabay. Baaqi waxaa leedahay beri maxaad qorsheyn rabtaa, adigoo beri ayaad ku celcelinaysaa, ma cunto gaar ayaad cuni rabtaa. Gabadhii Difyaan ahayd ayaa soo boodayso iyadoo baaqi canaananayso, waxaa leedahay adiga mar walba maxaad uga masiirtaa saay. Baaqina Difyaan ayay qabsanaysaa, waxaa leedahay adiga naftirkaada mar walba maxaad iigu dhegtaa aniga, maxaad mar walba ii aflagaadisaa si dadban iyo si toos ahba. Difyaan waxaa leedahay sababta waxay tahay mar walba waxaad ku dhegtaa ood ka masiirtaa oo hadal ku durtaa saay. Anigana saay si xad dhaaf ayaan u jeclahay, qofkii saay ku taaganna uma dulqaadan kari, oo qofkii saay haysto ma fiirsan karo. Saay waxaa leedahay Difyaan waxbaas dhibin, dadkan iyo kuwa aflagaadiin ama iyo kugu qaylin aniga darteyda iska dhaaf, dadkan waa taqaanaa mar walba baaqi lay difaacaan, iska aamus ayaa ay dhehaysaa. Dhinaca kaleetana saay waxay niyadda ka leedahay haddaba waxay ka dambeeyo gurigan buuq kama dhici doona, iyaga ayayna maqashiinaysaa, mar labaad ayayna ku celinaysaa. Waxaa leedahay beri waxay ka dambeeya aniga dartay buuq ma dhici doona, beri waxay ka dambeeyana dadkoo dhan way wada farxi doonaan. Arkaasoo Firaad wuxuu leeyahay maxaad beri qorsheyn rabtaa, bal ii sheeg, ma waxaad rabtaa inaad baxdid oo safar miyaad tahay, anigana waad naga qarnaysaa miya. Markuu su-aashiis weydiiyo saay ogama jawaabayso, kaliya waxay sii eedeynaysaa Firaad ay ku eedeynaysaa inuu Difyaan ku qayliyay, oo Difyaan xitaa waad fahmi weysay leedahay aniga iskaba dhaafay. Hadalla noocaas ay dhehaysaa, laakiin Shifangii ayaa shakisay. Waxaa leedahay saay qorshahaada beri muxuu yahay, bal ii sheeg. Haddaba xalqada halkaasi ku dhammaanaysaa. Saay oon jawaabin, laakiin dadkii u sarbeebtay, hadallana ag dhigtay, u tilmaantay inay beri baxayso, cid ay ogeysiisayna ma jirto oo si toos ay ugu sheegtay. Xalqadii maanta meeshay ku dhammaatay. Goosgooska waxaana lagu tusayaa waa xalqadii beri la daawan doono goosgooskeedii. Difyaan oo fahmaysa in saay ay bixi rabto, saay waa lagu fahmay bixitaankeedii, Difyaanina way ku fahamtay. Sidaa awgeed saay Difyaan waxay ka codsanaysaa inay arrinkan sir ahaan u qariso. Waxaa leedahay cid ha u sheegin inaan baxayo, sir labadeena naga dhexayso ha ahaato, qofna ha u sheegin ayay dhehaysaa. Difyaanina way ogolaanaysaa, laakiin ninkii Firaad ahaa ayaaba sheekadaas oo dhan maqlay. Firaad wuu dhageystay sheekadooda, waxaana ogaaday inay saay safar tahay oy beri bixi rabto. Haddaba miyuu celin doonaa mise wuu fasixi doonaa oo shib intuu ka dhaho ha baxda hadday rabto waxba igama gelin miyuu dhihi doonaa, mise wuu celin doonaayo jacaylkiisu u sheeganayay sidaasuu ku celin doonaa, labadoodii sidaas isku heli doonaan miya. Ilaan iyada waxay u bixiso isaga dartiisa, maadaama ay u malayso inuu isaga weli baaqi jecel yahay. waxaana leedahay haddii aad ka fogaatid nafis ayuu dareemi doonaa, mas-uuliyadaada isagay saaran tahay, culayska ka deji ayay isdhoosaa, oo adigana waxbarashadaada wada, isaga wax mas-uuliyadiisan dusha ka saarnaanin, ha ku furo adi isaga sidaas ku kala taga, isaga markaa baaqi ha helo ama yuusan helin, isagay u taala ayay isdhahday. haddaba xalqadii meeshii ku dhammaatay, goosgooskiina meeshuu ku dhammaaday, beri ayaa inoo balan ah. wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.